waayahay kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabnaa inaad la wadaagno xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ciidamada Itoobiya ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo waliba sidoo kale gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doolow iyo sidoo kale Beled Xaabo oo ah xuduudka Itoobiya Soomaaliya ay markaasi la dhowdahay halka Doolow Soomaaliya xuduudeedu ay saaran tahay inkastoo Beled Xaabo dhinaca kale xuduudda Kenya ay ka saaran tahay haddana waxaa jira warar kale oo ka soo baxaya oo sheegaya in gaadiid fara badan oo ay markaasi wataan ku soo qulqulayaan magaalada Doolow iyadoona markaasi aag ugu jiraan magaalada Geedweyne la yiraahdo iyo waliba sidoo kale Shaatolow meel la yiraahdo inta u dhaxaysa Luuq aanan soo gaarin Shaatolow inkastoo ay ku dhow yihiin hadda ama ay degan yihiin fariisaman ay ka sameeysanayaan dhinaca iyo waliba sidoo kale Shaatolow xaggeeda waxaana sidoo kale jira warar kale ee sheegayaan in qorshahan uu yahay mid uu ka dambeeyo Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa oo sidaan hore sheekaysan idin kugu la wadaagnay ku sugan magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya iyadoo markaas muddooyinkii ugu dambeeyay si adag halkaasina ugu socotay xaaladooda waxaana sidoo kale jira in markaasi Axmed Madoobe qorshihiisa ugu weyn ay tahay in markaasi dawladda iyo waliba sidoo kale si weyn iskaga horkeeno dawladda Itoobiya taasi oo muddooyinkii horeba markaasi khilaaf culus kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo tan Itoobiya waxaana sidoo kale Axmed Madoobe uu qorshihiisa uu yahay ama markaasi uu rabaa inuu markaasi uu ku mashquuliyo dawladda Soomaaliya in ay markale duulaan ay ku aado ama markaasi dagaalka ay kula qaado halka iyadu ay isagu markaasi ay ku qaadi lahayd laakiin hadda ayayna markaasi u muuqataa in fahanka ciidamada iyo waliba saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta dawladduba ay si weyn markaasi u fahmeen waxaana sidoo kale jira in waqtiyadii ugu dambeeyay kulamo xasaasi ah oo halkaasi ugu socda magaalada Kismaayo lagu casuumay saraakiil sarsare oo ka tirsan Itoobiya kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ku sugnaa laakiin sida xogta aan helay ee sheegaysa in hadda ay ka baxeen oo ay markaasi wadankooda ay dib ugu laabteen laakiin madaxweyne ku-xigeenka waa markaasi maamulka Jubbaland ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa oo qayb weyn ka ah shirka halkaasi ugu socday madaxda markaasi ee Jubbaland iyo waliba sidoo kale kuwa Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa u muuqata in fargelin xoogan ay ku haydo midnimada iyo waliba sidoo kale madax banaanida dalka ee Soomaaliya iyadoo waqtigan la joogayna si weyn ugu soo fidaydo gedaha waa markaasi geda iyo waliba sidoo kale geyiga Soomaalida qaybihiisa kala duwanba waxaana sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee markaasi ku dhaqan daafaha caalamkuna fariin culus ay u direen in ay markaasi sinno ugu hari doonin haddii Itoobiyaanku weerar uu ku soo qaado gudaha Soomaaliya ay markaasi dhankooda kaalintooda ay ka geysan doonaan waxaana sidoo kale wararka soo baxaya ee inta badan sheegayaan in markaasi magaalada Kismaayo kaliya laga taageersan yahay maanta Axmed Madoobe laakiinse dhammaan degmooyin kale markaasi ee gobolka Gedo iyo degmooyinkiisaba aan si weyn markaasi loo qaadacsaneen ama markaasi lagu raaxsaneen iyadoo markaasi la arkayay in maamulka degmada Beled Xaabo si cad ay ugu dhawaaqeen inay markaasi ay ka mid yihiin ama markaasi ay ka tirsan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya su'aal ayaa ka taagan oo walina la iska weydiinayo why ama sabab ay maamulka Doolow ay iyaguna markaasi Axmed Madoobe wali ay ugu daba dhagan yihiin sababta ugu weyn ayaa ah inay tahay xuduudda Itoobiya kaliya ay ka soo gudbi karto Soomaaliya ay ka soo aadi karto Kismaayo iyo waliba sidoo kale aageeda waa si xuduudda ugu weyn ee markaasi ay degan yihiin ciidamada Itoobiya wixii warar kale ka soo kordha fiditaanka Itoobiya ee ku soo fidaysa Soomaaliya iyo aragtida shacabka oo si weyn markaasi ugu dhiidhinayo in Itoobiya waqtigan la joogay ay Soomaaliya soo gasho ka soo kordha halkan ay kugu la wadaagi doonaa si share garee muuqaalka oo meel dheer nala gaarsiin qaybta hoose ee faalada commentiga ayaad inagu la wadaagi kartaan